maamulka dawladda hoose ee degmada Galkacyo ee Galmudug ayaa maanta bilaabay dhismaha waddo laami ah taa oo noqonaysa tii saddexaad ee maamulku ka bilaabo dhismaheeda magaalada Galkacyo. dhismaha wadadan oo qayb ka ah mashaariicda wadaagga ee xoojinta amniga iyo nabadgelyada Galkacyo ayaa waxa uu horeyn ka warbixiyay duqa degmada Galkacyo ee Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo sheegay in dhismaha wadadan ay qayb ka tahay mashaariicda xoojinta nabadgelyada magaalada Galkacyo oo ay wadaan maamulada dawladda hoose ee Galkacyo ee Galmudug iyo Puntland. maanta waxaan halkan ka bilownay wadadii saddexaad oo ah wadada isku xiraysa 5 star ilaa Cagarweyne. horey waxaa loo soo dhameeyay wadadii koowaad wadada nabadda aan u bixinay oo Cabdullaahi Ciise ilaa wadada airport galis isku xiraysa. waxaa kaloo la bilaabay wadadii labaad waxay ahayd wadada suuqa dhexmarta oo isla iskuulskaan timaada 5 star ومشاريع الاسكو حرنيد qaybtii wadooyinka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in isbeyski 5 star laba laan soo gashay Galkacyo waxaan kula dardaarmayaa in laamiyaal la idin sameeyo adinkoo aan canshuur bixinayn haddana nadaafadiina ay ilaashan weydaan waa dhibaato adna canshuur ma siisaan waxaan codsanayaa dadka saraan dheer leh oo laamiyada loo dhisay inay nadaafada ilaaliyaan oo meesha qurxiyaan. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa isna bogaadiyay wada shaqaynta maamulada degmada Galkacyo ee Puntland iyo Galmudug. runtii waxaan leeyahay ka faa'iideystay dadka Galkacyo laakiin waxaan caqabad waxa ah wada socota oo meel walba tay karta oo hal guri dhex taagan yahay ama hal dabaqay dhex taagan tahay oo aan la qaadi karin. waxaan moojiye waqti hore intaan maamulka soo gelin dadka maamulka shaqo ma qabtaan laakiin waxaan ogaaday in reer Galkacyo ay rabeen horumar waayo wadada socota oo la rabo dantiisa ah uusan ka fakaraynba wadada gurigan laba jid ku noqonaya laabi ku noqonaya lama taaban karo leeyahay hal mitir baan la taaban wuxuu leeyahay la iga galo aan waxa arkaa nasiib daro waxaan leeyahay shacabka Galkacyo ee Galmudug ama Puntland ha noqdo cidii wadada is hortaagta annagoo u wada jirna oo dhammaan rag iyo dumar aan kala haran talaabo ka qaado. qaar kamid ah shacabka Galkacyo ayaa iyaguna soo dhaweeyay dhismaha mashaariicda horumarineed ee ka soconaya magaalada Galkacyo iyagoona sheegay in maamulka dawladda hoose Galkacyo ay uga mahad celinayaan qabashada mashaariic horumarineed oo ay ka mid tahay dhismaha saddex waddo oo laami ah isla markaana laga hirgeliyay markii ugu horeysay koonfurta magaalada Galkacyo ee Galmudug. wadooyinkan iyo mashruucan bilowday waa horumarin dadka iyo dalka loogu adeegayo. waa in loo wada arkaa in ummaddu ay wax wada qabsan karto. waa in loo arkaa in nabaddu wax tahay. waa in loo arkaa qof meel wada hor istaagay iyo qof ma taqaanaa shakhsiya inaan waxba loo joojinayn. waxaan leeyahay dadka guryaha u dhow laamiga yeeshay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu xamdi naqeen fursada ay heleen ka faa'iideysteen maalin kasta meesha ma soo mari doonto fursadaan oo kale. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Galkacyo.